caawa waxaanu ku bilaabaynaa dalka Koonfur Afrika madaxweynaha dalkaasi ayaa sheegay in dalkiisu u diyaar garoobay in dad badan cusbitaalada la dhigo iyadoo noocan cusub ee corona Omicron kala yiraahdo uu faafayo oo isla markaasina galaba u yiri mowjadii afraad ee marka aynu eegno sida aynu arkayno waxa jirta in madaxweynaha Cyril Ramaphosa uu sheegay in tirada caabuqyada joogtada ahi ay kordheen shalaab toddobaadkan ee la soo dhaafay oo kaliya wuxuu ku adkeeyay dadka Koonfur Afrika inay istalaalaan isagoo ugu baaqay in si degdeg ah taas wax uga qaban doonto soo kabashada dhaqaalaha iyo nolosha dalkaasi dhanka kalena Europe sabtidii iyo xadiiba ina dhaaftay dibadbaxyo ayaa ka dhacay lagaga soo horjeedo xayiraadaha viruska corona ee la saaray wadamo badan COVID-ka wadamadaasi waxa kamid ah Denmark, Austria, Spain iyo Greece iyadoo dalka Netherlands awalba ay dadku ka soo horjeedeen in lagu soo rogo xayiraado ku saabsan in haystaan COVID cardka waxa la yiraahdo oo sheegaya in lagu talaalo intaan Omicron kuba soo bixin waa kan mid kamid ah dibadbaxayaasha aan kula kulanay dalka Belgium magaalada Brussels oo ka hadlaya uma adkaysan karo faquuq noocu doona ha ahaadee hadda waxaa jira baasaboor dadka tallaalan taasi oo ah takoorid xayiraad ayaa la saaray dadkii bulshada daryeelayay waxay u soo socdaan dhinacayaga ma doonayo kaligii talisnimo dhanka kalena go'aanka dawladda UK ay ku sameysay in dadka ka soo safraya Nigeria ay tahay inay galaan karantiilo marka halka yimaadaan isla markaasna hotel la dejiyo lacagta iska bixiyaan ayaa Nigeria aad uga carootay waxaana ka hadlay ninka oo safiirka uga magaalada London Safara Tunji Izola oo sheegay in uu isagu uu yahay buri inay tahay mid ay Nigeria ka soo horjeedo wuxuu cidna lama gal cusbitaal cidna ma dhiman marka wax ay ka duwan tahay nooca dalta isagoo la hadlay BBC da Tunis inshallah waxa uu sheegay in Nigeria looga arko talaabadan ay sameysay dawladda Ingiriisku mid ku dhisan cunsuriyad safar Mr. Osolo waxa uu intaas ku daray Omicron ku maaha nooc dhibaato weyn leh oo ilaa hadda dhibaatadiisa lama arag buu sidii dalta dawladda UK ayaa u jawaabtay hadalkiisaasi waxaana ka hadashay wasiirad ka tirsan dalka Ingiriiska oo la Caitlin Milhouse waxaana ku tilmaamtay ereyada ka soo baxay cunsuriyada socdaalka waxay tiri waa midaan haboonayn oo isla markaasina lagu degdegay tafaasiil dheeraad waxay noo haysaa wariyahayaga Nigeria nooga soo warantaa Mayeni Jones oo Lagos joogta waxa dhacay waxay ka dhigan tahay in socdaalka khalkhal badan galayo halkan Lagos iyo UK labadaba oo dadku u kala socdaalayaan dadku waxay rabaan inay booqdaan qoysaskooda ama saaxiibadood oo ayna 3 sano ugu dambeeyay ay ahayd mid aan la socon waxaa kaloo mudan in la ogaado in waqtigani uu muhiim u yahay dhaqaalaha dalka Nigeria dalkani oo dadkiisu ka badan yihiin 200 milyan oo qof ayaa qaar badan qurbaha ku nool yihiin Mareykan iyo Ingiriiska gaar ahaan oo waqtigan Christmaska la soo laabto lacag ayay kharash gareeyaan maqaaxiyaha ayay ka cunteeyaan aroosyo ayay tagaan